وعن مركلة أصحابتين شرفت له كسو دوادا كانالكينا ومدى ميديا لباتانية أفر وأيضا وان كلا مقنين وحكا لكم معنا كلا مقنين لكن هولا شقي برنامجيو أيامهان معركتي يغو فربطي أو كمشغول سنة إن شاء الله موضوعي داني برنامجي داني ayaan dib u sii wadan doonaa maadaama maalmahan ay ka maqnaa mowduuc aad u qurux badan ayaa idin soo diyaariya waxaan jeclaan lahaa ina ila dhageysataan haddii aad ka heshaan qaybta commentiga aad igula soo wadaagtaan mowduucan haddaba wuxuu yahay xeerarka nolosha waxaan ka soo diyaariyay buug uu qoray aqoonyahan Soomaaliyeed oo la yiraahdo Nuur Deeq Cabdullaahi Xaashi ani ma aqaan ninka meel ku nool yahay wuxuu qabto laakiin buugga boqolka xeer ee nolosha la yiraahdo waa buug aad u qurxoon ما شاء الله أنا وديارسن هذا حررك عن الله شاهد بيسو جيتين مركا وسوق القلاسين دورنا وسوق كوبي دورنا وحنجعلان لها لو إلى سدح كمية حرر كاسي كي أنك جارنو إنان إسلا فيرينو ونوضع آخرينو هذا موضوع بوجاك تقول قرحون إيش كوين كيسو جيتله إنان مرمر إذن لو ذاك أو كعاجز بحسنو إذن كيان ذي ويديني يا haddii aad ka heshaan xeerarka nolosha ama boqolka xeer ee nolosha xeerka koobaad wuxuu yahay ilaahay ka baq waa alla ka cabsi waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan ee qofka bini'aadanka ilaahay uu uumayna waa alla ka cabsiga iyo Allah subhanahu wa ta'ala inuu caabudo taas qof aanan ogeyn ma jiro alla ka cabsigu marka waa waxa qofka bini'aadanka qofka dhiga waana maaragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala waa tuyir wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun waana ujeedada koowaad ee the primary reason why the human being is created sababtana loo abuuray weeyaan hadaba nabigeena waxa uu yiri ilaahay ka baq meel kasta oo aad joogto xumaantana wanaaga raaci way tirtiraysaa dadkana si wanaagsan ula dhaqan waa xadiiskii nabiga ee ahaa ittaqullah haythu ma kunt watbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan xadiiskan culimadu waxa ay sheegeen in uu koobayo dhammaan fariinta diimeed ee xambaarsan tahay risaaladii lala soo diray subhana alayhi salatu wasalaam hadaba si ilaahay si dhab ah aad ugu caabudo oo ilaahay cabsidiisa si barax taran aad ugu muujiso waxa loo baahan yahay in aad ilaahay u qaalis yeesho niyadaada oo aad la timaado ikhlaas ilaahay wuxuu yiri waxa Allah si dhab ah uga cabsada kuwa ilaahay yaqaan waxa kale jirta aayad kale ilaahay ku yiri ya ayyuhalladina aamanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناها قفك إسلامك iyo qof kasto bini aadan waxa la faray oo waajib la saaray inuu san dhiman isaga oo aan islaamin qofkii isagoo gaala dhinto kulay jahannamadiisu qurqurin doona wuxuu ka helana isaga leh hadaba si aad u noqoto numberka koowaad waxa loo baahan yahay in maaragtay markasta aan noqoto qof dadka maaragtay ka duwan qof yaqaana sababta iyo ujeedka ilaahay uu kala koonkan loo keenay asaga iyo ujeedada loo abuuray hadii aad taqaan yes waxa tahay qof wanaagsan guuleysan kara guulo badan ku talaabsan kara laakiin hadii cabsida ilaahay ay ilduufto ama waxyaabo kale oo ilaahay cabsidiisa ka baajinaya ama ku dhaqanto ama waxa diinta xaq aadan diin ka dhigan waa hoogeen anaga marka muslimiina naamaba ku jirnaba qodobka koowaad ee xeerka nolosha insha Allah waxa uu ahaa ilaahay ka baq ama cabsida ilaahay kulay wax la isku dardaarmo iyo wax la isfarana ayada ugu qeyb badan insha Allah next program qodobka xiga ayaan ku soo qaadan doonaa oo ah sir yeelo ama in noloshaada wax ku qarsan ay jiraan insha Allah qodobkan halkan ayaan ku soo gabagabeynay oo ah alla ka baq insha Allah qodobada xiga waxaan ku codsanayaa in aad la socotaan hadii aad wax ka bedelayno iyo hadii aad wax kale ku soo kordhinayna idin kale waaye buugga sawirkiisana asatan baneel ahaana idin ku soo saara meesha qofkii u baahan waxa umaleynaa wadanka qaybiisa kale in laga heli doono aniga buuggan hadiyad ahaan ugu soo gaaray nin saaxiibkay maaragtay ka soo qaaday ay loo soo aqrinaya waa buug aad u wanaagsan oo soo jiitay waan nigu boorinaa in qof walba oo maaragtay heli karo uu raadsado buug aad iyo aad u wanaagsan si taxana ah ayaan u soo gudbin doonaa buugaagta noocan oo kale ah buuggaana waan dhamayn doonaa hadda qodobkiisa koowaad ayaan ka hadalnay inta ka gaari doono barnaamijka xira waa ummadda media iyo walaalkiin Cabdalla oo idin leh habeen wanaagsan is aragti dambe xiiso leh